daayro horta xaaladda ilaa maanta waa la isku baaba'ay dadka dad ehelaa isbaabi'in rabay dadka qaar way iska hadlaayaan ma fahanti ya malay maqlaa maanta waxaan uga aamusnaanay inta waxay ahayd in wax la xaliyo ninka soo qabto aabihiis badbaado ilmaha la dhasha badbaadaan waxbaan xeerinayna waa run laakiin daayir waa la yaabsanaa adiga xataa waxa uu aamusnay dadka badanaa waa la shakiyay xataa ninku inuu sacad yahay dadka dhan laga wada shakiyay ma fahanti maadaama adiga aamustay gacalaan nahay xiriir nagala dhaxeeya xiriirnima nagala dhaxaysa soomaalinima nagala dhaxaysa waa xaq dhowrnaa dhulbahantay waa in nala shaqeeyaan waa inay wiilka soo gacan geliyaan ha soo gacan geliyaan laakiin waxa waaye hadda annaka horta kaas balbalaar waa dad laga yaqaano familkan iyo gabdhaha qof sacada ama qof kale habar gidir ama hawiye kale xanaaqsan oo wax u geysanaysa meeshaan ma jirto waana la is yaqaanaa ma fahanti muhiimiyadda waxa waaye gabadhan yariiska qaladka ka dhacay waa ilmo yar oo hooyadeed ka taxadaraysay qaracantay hooyadeed si aan loogu sheegin warka hooyadeed u maqlin waana 5 bilood dadka qaar dhahayaan 2 sano waxaan dhacday 5 months waay warkan gabadha wuxuu ku dhacay waa 5 bilood hooyadana way sheegtay waa 5 bilood gudaheed wax dhan oo wax dhaceen marka waxa waaye waxa u sheegaynaa dhulbaante inagu diyo ma rabno wax la diyo qof qaada kara ma leh diyana saacad ma rabaan haddaan ku hadalnana tifo hoosaadkii gabadhan ka soo jeeda anagu diyo qaada mayno waa sax waa la isku raacsan waa la isku raacsan qoyskayga ah oo familkeena hoosa oo ka hadla diya waa dilayna madax ku dhufaynaa waa sax aniga aan kula mid ah in adeertahay ahay gabar sacadaha ahay aniga marnaba raali kama ihi wiilkaas gabdha la dhashtay ama gabar kale dhulbahantay ama gabar kale Soomaaliyeed ina wax loo geysto marnaba wayna qabaan dadka dhan iyo ehelka ma fahanteen nina wax geystay aabiis qalad uu galay qaladka wiilkiisa iyo qalad kale uu galay laba qalad oo aabaha isku galay muhiimiyadda waxay tahay inaan nin kala keen sacada soo hartay family adigana waa ka warqabtaa dadka hoosaad meeshan gaajo ma jirto family waxay u baahan yihiin annaka dhan iyo dadka familkeeda diyaar u la'ah qof gaajo hayso maanta la dhahay ha qaadato lacagtan gabadhan iyo hooyadeed ha lagu maslaxeeyo meeshan ma jirto sharciga islaamka aa lagu wada qanacaa sharciga islaamka Soomaaliya ayada iyo aabaha ana warka marka waxa waaye fahiimo waa la ogyahay dad loo laayo buuq la sameeyo ayaan u qarinaynay inta laakiin haddii mar saruur way ay kala dhamaa waayeen danta waxay nagu qasbaysaa inaan sheegno caawo dhahno ninkaas waa nin dhulbahanta ah in la yaqaan baan dhalay buu noo xiraa aabihii baa damiintay aabihii baa saxiixay haddana aabihii baa loo soo xiray ninkeena magaalada muqdisho kama baxsana laba nin oo la shaqaynaysana waa noo xiray laba nin qabiiladooda waa shaacinaynaa aabihiina waa noo xiran yahay gabdhihii oo caawa lagu gurigii gabdhihii laga soo baxana waa diidno anigu ma rabo nin saacado inuu gabar ku xadgudbo ama nin habar gidira waxaan dhahay gabdhaha ka fogaada dhulbahantaha ah ee ninka la dhashay waa ciyaal xamar ma rabno in gabadh dhulbahanta ah habar gidir waxyeelaysana la yiraahdo laakiin raggaasan ka xaajo qaadanaynaa ninka haddii aan weyno aabihii baa loo tooganayaa dhulbahantaha ogaadaano dhulbahantow daayir soo ma maqashay ina adeer anagoo waxa way tulkeeda in adeegkii rumaadana waxaan ku cadeynayaa ninkan aabiisa iyo dadkiisa la hayaa wuuna xiran yahay wax diye la yiraahdo ama wax la qaadanayo ma jirto hadii asugu la waayo oo la keeni waayo in aabiis loo tooganayo midda kale bulshada Soomaaliyeed ma xarno inaan cadeeno ninkan ninkii soo hela ama soo qabta ama informationkiisa $30,000 anaana balan qaadaya ninkii soo helana daayiran u soo marnaa daayir waa social active oo social caanka ah anaana u soo marnay $30,000 ana caawd u saar midkiisa $30,000 lacag akoonka ku jirtaa qof allaalay qofkii tibka soo bixi meesha uu ka joogo magaalada Muqdisho lacagta $30,000 ayaan u shubayaa dhamaanadiis aniga weeye daahiro waliba ninka markii hore waa la xidhay ma ogtay fariis waa la hayaa ninku ma aha nin aan report garaysnay ninku waa fariis bilbo noo xiraa aabihii baa damiinto damiinku daayir hadda aabihii baa u maqan hadduu aabihii keeni waayo inaad mudiga hal mar wax yar aro inuu sheego aabiisa guriyaha waa laga soo baxay walaalihiisa la soo qabtay kulli way xiran yihiin familkiisa xiran dadka Soomaaliyeed waxa rabnaa dadka kale walaalaheena beenta laga sheegay in laga daayo saruur ma aha ninka waa nin dhul baxanta dushuna joogay aabiisa xiran dadkiisaan xiran informationkiisa dhan waa la hayaa asaguna uu baxsan yahay magaaladu ka baxsan yahay
ninkii soo sheega meeshuu ku sugaya ama sumad uu leeyahay soo sheega amraad uu leeyahay soo sheego anaa ballan qaadaya in adeerkid rumaada fahmo Axmed Cumar anaan inta ka ballan qaadayo $30,000 ninkii soo sheega ama ninkii soo qabtana daahir baan u soo marsiinayna madal cadaan nimcaalow inaad rabaa ku wata dadku weli ma fahansana baasha war inaad gabadha in adeertay hadday saruur soo caydo hadday saleebaan caydo hadday sacad caydo inaad waa gabadh habar gidira reerkay doontay caayi kartaa ay ku gardaroo kartaa kama dhigna markaa inay saruur nacabtay kama dhigna inuu saruur waxaan sameeyay saruur hooyadeed baa saruura caruurta la dhalatay ka waaweyn baa saruur bay gabadhan ku soo dhex kortay see u suurtoobi kartaa inay habar gidira inuu gabadh habar gidira dhaqan xumada intaa leeg uu adeegsado war adeer waxaasi ma jirto ninkan waa nin Falastiiniya waa Falastiini weeyaan dhulbahantaa oo dhagax tuura ninkaana aabihiina waa xidhaysu nimcaala boy noo sheegay daahirna noo sheegay de waa laga xaajo qaadanayna adeer waa laga xaajo qaadanaya wax kale meesha yaala ma jirto ninka laakiin ninka noo sheega waa lacagtaas nin lacag qaadanaya weeyaa $30,000 weeyaan ninka muxuu ahaa ninka warbixin ka keena ninkii soo sheegana $30,000 adoo bartaas fadhisan anaga waxa way akoonkaada embassy-ga u sheeg bay cash weeyaan wali bada hadda isleedahay akoon waxaas bay cash baa lagu siinay xamar qof jooga lagu dhiibaya aad iyo marka daahir waa maadsan tahay $30,000 anaga ballan qaadna anaga walaalkeeda in adeerkeeda daahir anu waa ila soo xiriiraysaa waan isla xiriirina qofkii soo qabtana anaga $30,000 farta ka saaray gabadh wehel bay leedahay qaraabo leedahay cid ku jira reportka wiilasha bixiyay adiga waxaan rabnaa kaliya inaan noogu dartid labada nin oo kale xiran qabiiladooda in loo sheego shacabka labada kale xiran ee kiiska ku jiray horta mid waa baadicade ha kan kalena kabtano maxaa la yiri inaad asuun waa baadicade kale waa baadicade okay aad iyo wala wiilasha lahayo ciidamaday ku jireen ma aha niman shiciba labada nin ee hadda lahayo waa niman ciidamo aha dareyska ciidanka xirnaa ninka shacabka ayaa hadda maqan nimanka lahayo waa ciidan ee gacanta ku jira dawladda maantay gabadhan arrinkeeda waxa lug loola bixin waayeen niman ciidamo ah ku jira sheekada ilaa marka ninka hadda shacabka ayaa maqan ee falkan kow maaragtay isagu uu maaragtay hindisay sameeyay falkan ka bilowmay wiilasha kaleeto waxay ahaayeen la wadayaasha ama xiriiriyaasha laakiin ninkii waxaan sameeyay ee faraha taagtaagay uu maqan yahay waana ninka caaw 30,000 madaxiisa tahay fadlan saruurna maaha cid kalena maaha waa nin dhulbahanta waa la yaqaanaa aabihiisa xiran walaalihiisa xiran caaw gabdhihi ciidanka ilaalinaya ummadii saacada ku baxday waxa la leeyahay gabdho dhulkana lagu xalayn karo isagana dantu waxay ugu jirtaa inuu isu soo dhiibo haddii isu soo dhiibo waayana waxaan u sheegaynaa shacabka reer Muqdisho daalim ha qarinin waad ogtahay gabdho waa leedihiin wayna la dhasheen ninna waxba uma aha dhulbahantana waxba uma aha Soomaalina waxba uma aha ninka dhaawacaas geystay adigana ka qadee oo 30,000 qaada caawa wallaahi been ma aha 30,000 ayaa lagula taagan yahay saacadan haddaad gacanta u soo gelisay ciidamada ood la soo xiriirta daahir meesha doonti kala soo xiriir waxaa helaysaa 30,000 oo doolarka Mareykanka ah waa ballan waa axdi gacanta lagugu shubayaa bes intaas laga codsanaa inaad soo gacanta dawladda aad gacanta soo gelisid ama gacanta dadka gabadha ka dhalatay ama aad tilmaantid ama aad sheegtid qofkii 30,000 farta markaan ka saarnayna waxaan u ballan qaadaynaa dibadda in loo wadi doono oo waxa waay Muqdishona laga wadi doono ma sheegayna anaga ama ha ku qofka cabsamaye qofkee lacagta 30,000 anaga amiska naga saaran sheegayn bes marka waxaan kaloo rabnaa walaalaha dhulbahanteena u sheegno muddo shareeca ayaan bixinaynaa haddii suurtagal weyso lacagta sacad waxay u bixiyeen maanta ilayeen waxaan lacagta aan u bixinay in la badbaadiyo ninka aabihii haddii dee ninkii asaad damiintay la waayna muddo shareeca sii doonaa culimada sheegi doona muddo shareecadaas haddii muddadaas lagu waayo wixii ka dambayso hadda waxaan ku soo direynaa ciidamo diyaarsan wallaahi bilaahi oo gurigooda ku gaafan saas odayaal u hortaagay waxaan tusaynaa gobonimada yani odayaashii diidan dhalinyaradu way xanaaqsan tahay ciidamadii oo kacsan oo xanaaqsan oo gududsan oo gabar loo cunaa haddii ninkii la waayey laakiin odayaashii iyo dadka ay hortaagayiin caddayn haddaa la soo gelinayaa
media waa arki doontaan annagu wax beena ma sheegayno wax barbagandana ma aha si cad oo toos ah u arki kartaan marka annaga gabar kale in wax la yeelo raali kama niino Soomaaliyeed sidaan teen annaga noo xanuujisay dhibkii ku dhacay ayaan tu kalena u rabin please waa codsi qof walba oo Soomaali oo dhiig Soomaali ku jiro adiguna ka qadee $30,000 lacag yar maaha ilaahay 99 magac la lagu dhaaranaya madaxiisa ku xiran yahay waana diyaar raggaas ninkaas la diyaara iyo ilmaadeeradiis labada inaad safiyo labada xiran maanay tilmaamin labada loo xidhay kale muxuu ahaa falka kula jiray way sheegeen meel ka sheegan waa laga soo waayay ha way sheegeen okay hala ayaga liida sheegay ayaga meel walba sheegay intii ay xasuusteen iyaga laftirkooda ciidamada ugu jira wali baaritaanka wali waa lagu wadaa oo maaragtay ciidan afraa kula jiraan arin ciidameed kama hadli karno aad iyo safiyo kalena inaan ku dar waxa rabaa gabadhu ma ahan gabar qabiil yar ka soo jeedo gabadhu waa gabar habar giidina sacad siciida reer nimcaala reer caliya ma nin kasta uu ogyahay anaana inta ka ballan qaadaya mar saddexaad iyo mar afraad anaa ballan qaadaya $30,000 daahir calasoon uu fadhiya daadanayaan fahiimo taasaan ognahay maaha fahiima naagaha masaakiinta ah waa la yaqaanaa meesha kasoo jeedaa la yaqaanaa ragga ka dambeeyaa la yaqaanaa annaga gabdhaha iyaga ciyaar laguma taabto warku wuxuu ku cadeeyaa faan ma jiro hadeer iyo faataa dhuqlayn $30,000 yaa qaadanaya yaa yaqaana gacmaha soo taagta noo tilmaama annagaa soo qabsanayna farta noo fiiq annaga ciidamadeena u dirsanayna please waa codsi ku dirsanayna lacag ma idasi haashay ma iday daayro horta xaaladda ilaa maanta waa la isku baaba'ay dadka dad ehla isbaabiin rabay dadka qaar way iska hadlaayaan ma fahanti male maqla waxaan uga aamusnaanay inta waxay ahayd in wax la xaliyo ninka soo qabto aabihiis badbaado ilmaha la dhashay badbaadaan waxbaan xeerinayna waa run laakiin daahir waa la yaabsanaa adiga xataa waxa uu aamusnay dadka badanaa waa la shakiyay xataa ninku inuu sacad yahay dadka dhan laga wada shakiyay ma fahanti maadaama aad aamustay gacalan nahay xiriir naga dhaxeeya xirnima naga dhaxaysa Soomaalnima naga dhaxaysa waa xaq dhowrnaa dhulbaantay waa in nala shaqeeyaan waa inay wiilka soo gacan geliyaan ha soo gacan geliyaan laakiin waxa waaye hadda annaka horta kaas balbalaar waa dad laga yaqaano familkan iyo gabdhaha qof sacada ama qof kale habar gidire ama hawiye kale xanaaqsan oo wax u geysanaysa meeshan ma jirto waana la is yaqaanaa ma fahanti muhiimiyada waxa waaye gabadhan yariiska qaladka ka dhacay waa ilmo yar oo hooyadeed ka taxadaraysay qaracan ay qaracantay hooyadeed si aan loogu sheegin ee warka hooyadeed u maqlin waana 5 bilood dadka qaar dhahayaan 2 sano waxaan dhacday 5 months waay warkan gabadha wuxuu ku dhacay waa 5 bilood hooyadana way sheegtay waa 5 bilood gudaheed wax dhan oo wax dhaceen marka waxa waaye waxa u sheegaynaa dhulbaante inagu diyo ma rabno wax la diyo qof qaada kara male diyana saacad ma rabaan haddaan ku hadalnana tifo hoosaadkii gabadhan ka soo jeeda anagu diyo qaadan mayno waa sax waa la isku raacay waa la isku raacay qoyskayga ah oo familkeena hoosaa oo ka hadla diya waa dilayna madax ku dhufayna waa sax aniga aan kula mid ah in adeertay ahay gabar sacadaha ahay aniga marnaba raali kama ihi wiilkaas gabdha la dhashtay ama gabar kale dhulbaantay ama gabar kale Soomaaliyeed ina wax loo geysto marnaba wayna qabaan dadka dhan iyo ehelka ma fahanteen nina wax geystay aabihiis qalad uu galay qaladka wiilkiisa iyo qalad kale uu galay laba qalad oo aabaha isku galay muhiimiyada waxay tahay inaan nin kale keen sacada soo hartay family adigana waa ka warqabtaa dadka hoosaad meeshan gaajo ma jirto family waxay u baahan yihiin anaka dhan iyo dadka familkeeda diyaar u la ah qof gaajayso maanta la dhahay ha qaadato lacagtan gabadhan iyo hooyadeed ha lagu maslaxeeyo meeshan ma jirto sharciga islaamka ah lagu wada qanacay sharciga islaamka Soomaaliya ayada iyo ana warka bata marka waxa waaye fahiimo waa la